kumanaan dadweynaha oo isugu soo baxay ka qaybgalka muxaadaro oo Muqdisho ka jeedin lahaa Sheekh Maxamed Ibrahim Kinyaawi oo ciwaankeeda ahayd Iscafis ayaa maanta baaqatay waxaana baaqashadaasi la sheegay inay sabab u tahay howlkii lagu qaban lahaa muxaadarada oo qaadi waayay dadka ka soo qayb galay oo aad u badnaa inta la xaqiijiyay 3 qof oo ka qayb gali lahayd muxaadaradaasi ayaa ku dhaawacantay kadib markii dadkii ay isbuurteen ciidamada ammaanka sugayna ay rasaas ku fureen qaar kamid ah dadkii ay u suurtagali weysay inay ka qayb galaan muxaadaradaasi ayaa ka hadlay aadan ugu faraxsanahay maanta inaan oo aan halkan imaano inkastoo muxaadaradii ama khudbadii wili aysan bilaabanin oo haddana meeshii ay xabado iyo ay ka dhacayaan oo waxaan ficnaan lahayd meesha in laga bedelo oo meel fagaaro ah meeshii yar dadkiina aad u tiro badan yihiin marka runtii waxaa ficnaan lahayd in meel kale oo ku habboon oo sida Studio Colis oo kale in loo bedelo insha Allah runtii waxay taas muujinaysaa in dadka Soomaaliyeed wili diintooda ay aad u jecel yihiin maadaama bariyahan ay socdeen yani dadka ay ku mashquulsan waxyaabo fanaag waxa maanta runtii dhalinyarada ay soo bandhigeen inay diintooda ay aad u jecel yihiin runtii aadan ugu faraxsanahay maanta waxa uu maanay muxaadarada Sheekh Kinyaawi inaan ka faa'iideysano laakiin wayna suurtagali weysay howlkii oo yaraa dadkii oo badnay iyo heer Muqdisho tirada ka badan Sheekh Xiise oo qabaan marka waxa sidii ilaa hadii la helayo size ka weyn oo lagu qaban karo sida istaadiyooga waaweyn in lagu qabto dadka asaasay jaanis u helaan si ay ugu soo qayb galaan walaalka cafi hal ku dhigo yahay barnaamijka kulli ummadan buutoonka bilyan waxa isu keenay inay iscafiso oo kalgacayl iyo walaalnimo iyo ehelnimo isku soo dhaweyso waaye aniga hadda shakhsiyan waxaan u imid inaan ka qayb galo taas muxaadaro kaliya uma imaan laakiin inaan Soomaali aan iscafino aan isugu nimaadno aan isku marxabeeyno ilaa imaanka mawduuca ay soo jiitay saas darteed marka waxa tirsanaya xogaa dadkii loogu talagalay muxaadarada ay noo qabtaan iyo barnaamijka inay xogaa si ay maamul yaraan uga gaabiyaan Sheekh Maxamed Ibrahim Kinyaawi oo caawa warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa kumanaanka bulshada ay ka soo qayb gali lahayd muxaadaradaasi kaga cudur daaray bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah walaalaha Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan waxaan idin kala soo hadlayaa waa magaalada Muqdisho maanta runtii balantaynay ahayd in aan howlka saal isugu imaanno sidii aan filayay horta ma aanay noqon waxaan aad iyo aad u maleynayay in 2000 3000 4000 intii aan sameynay ee aan gogolay laakiin runtii qalbigii magaalada aan ku imid ayaa runtii soo baxay qalbiyadii wanaagsanaa way soo baxeen magaaladii bar ayaa halkii yimid waxaan ugu talagalayna ma ahayn waxaan aad iyo aad runtii uga cudur daaranayaa in dadkii maanta wada yimid in ay howlkii soo gali waayeen in aan la kulmi waayay oo ay arki waayeen anna markaa howlka markii aan tagay wuxuu runtii damiirkayga isiin waayay dhowrka kun ee hod gudaha ku jirta ee gale ee waqti hore yimid in aan la hadlo boqolaalka kun ee kale banaanka taaganna ay ka qadaan sida awadeed ayaan u soo gaabiyay hadalkaygii maanta waxaana runtii halka ku ballan qaaday in goordhow hadduu Ilaahay idmo meel ka ballaaran kana weyn meeshii maanta in aan runtii shacabku ka shaqeyn doono madaxdu ka shaqeyn doonaan halkaana aan maaragtay dadweynaha kula kulmi doono aad iyo aad baan uga cudur daaranayaa maanta haddaanan meesha la soo wada gelin haddaan maaragtay hadalkeeni si fiican uusan u dhicin Sheekh Maxamed Kinyaawi wuxuu Ilaahay uga baryay inuu caafimaad siiyo dadkii ku dhaawacmay ka qaybgalka muxaadaradii uu jeedin lahaa markii ay maanta aad iyo aad u bateen oo howlkiina uu buuxsamay la dhaafi waayay runtii ilaa iyo taleex lambar 4 la dhaafi waayay xagga ilaa airportkii oo wadadii ay xirantay ayaa dadka qaarkii waxay u maleeyeen in howlka uu banaan yaho la xirayo marka dadkii baa isyaro buursaday dad baa marka ku dhaawacmay Ilaahay waxaan uga baryayaa dadka dhaawacmay ee labada ah ee la sheegayo runtii aad baan idin salaamaya Ilaahayna waxaan kaga baryayaa inuu idin boogadhayo waxaan dadweynaha yaqaana waana booqan doona biidin Ilaahi tacaala meel walbo ay joogaan in wax walbo gabdhaha loo qaban karo booqasho haday noqoto hadii dhiirgelin ay noqoto hadii duca ay noqoto iyo hadii xataa maaragtay waa dad dhaawacmay maaragtay si walbo lagu caawin karana waa codsanaya
aad iyo aad baan idin salaamayaa ilaahayna waa idin soo bariyayaa gabdhaha dhaawacmay aadna waa idin jecelahay runtii qalbigayga idinla jira weligeena idinla jiri doona ilaahayna ruuxul qudus idinku xoojiyo hana idin boogadhayo aad bad Soomaali meel walba ay joogto wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo waqaafta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Aadan Dhuubo ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay kala shaqeynayso sidii meel ka weyn hoolka sahar loogu qaban lahaa muxaadaradaasi taala intii gaartay waa bagaartay hadda aan caalamka waxa waay sidii ma waa la wada gaarsiin aadan kaga mahadcelinaa shucuurta soo dhawaan kuleena mar labaad garab gaashana leeyahay insha Allah taala wixii hawsha ku saabsan dawladda u bacdigaysa oo meel alla meeshii adiga ay noqon doonto inaad ahir degmay noqoto iyo degmooyinka gobolka Banaadir kaamil ee goobaha waaweyn oo suuq imaan doona xafladahaas gaarka oo dhan aan garab ku nahay Cabdiraxiin Cali Laawe Somali Cable Muqdisho